xilli ay mudaharaadyo rabshado wata ka socdaan guud ahaan dalka Mareykanka ayuu madaxweyne Trump ku hanjabay inuu militarigu adeegsan doono dejinta xaaladda muddo hal isbuuc ayay meelo badan oo kamid ah wadanka ku gaareen dibadbaxyada ay wadaan dadka ka careysan dilkii nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska George Floyd ayaa magaalada Minneapolis ku dhintay 25kii bishii la soo dhaafay waxa dilkiisa dacwad loogu soo oogay askari Mareykanka cad ah laakiin dadka mudaharaadada ay qaarkood ayaa boob u geysanaya ganacsiyada iyagoo dad qabadsiiyay xarumo ay booliiska leeyihiin Mr. Trump ayaa sheegay inuu militariga u diri doono magaalooyinka iyo gobolada ku guuldareystay inay wax ka qabtaan xasilooni darada laakiin qaar ka mid ah madaxda gobolada ayaa sheegay in dawladda dhexe aysan wax awood u lahayn inay ciidamo heer federaal ah howlgeliso iyadoo aan wax fasax laga haysan maamul goboleedyada waxa horeyba u jiray kumanaan askari oo magaalooyinka ka howlgala kuwaas oo ka tirsan ciidamada kaydka militariga waxay ciidankaasi ku sugan yihiin in ka badan 20 gobol oo ka tirsan Mareykanka iyagoo isku dayaya inay wax ka qabtaan mudaharaadyada laakiin askartaasi militariga ka socota waxa si gaar ah u codsaday magaalooyin iyo maamul goboleedyo hase yeeshee sharciga Mareykanka waxa qarnigii 19aad lagu daray in arrimaha qaarkood ay horseedi karaan in dawladda uu fadhigeedu yahay Washington DC ay faragelin sameyn karto iyadoo aan fasax ka qaadanin maamul goboleedyada sharcigaasi wuxuu dhigayaa ansixinta governatoriyaasha looma baahna marka uu madaxweynaha go'aan ka soo saaro xaaladda ka hortaagan gobol ay horjoogsato in sharciga Mareykanka laga fuliyo ama marka ay khatar soo food saarto xuquuqda muwaadiniinta heerkaas waxa qalinka lagu duugay sanadkii 1807 si madaxweynaha xilka haya loogu sahlo inuu qaado talaabooyin laga maarmaan ah sharci kale ayaa la ansixiyay sanadkii 1878 wuxuuna dhigayaa in aqalka wakiilada uu fasaxo go'aanada militariga loogu adeegsanayo arrimaha gudaha laakiin khabiir ku xil dheer arrimaha sharciga ayaa warbaahinta u sheegay in sharcigii hore uu ku filan yahay inuu madaxweynaha adeegsado marka uu go'aanada kaligiis ku eg qaadanayo wala wada ogol yahay in madaxweynaha uu xuquuq dhinaca sharciga ah u leeyahay howlgelinta militariga isagoo aan cidna amar ka sugin sida laga soo xogtay xogta golaha wakiilada sharciga madaxweynaha awoodda u siinaya adeegsiga militariga waxa hore loo isticmaalay 10 jeer inkastoo aan hal adeegsanin muddadii 30 sano ahayd ee la soo dhaafay markii ugu dambeeyay waxa sanadkii 1992 ku dhaqaaqay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush xilli ay socdeen mudaharaadyadii isirka ku saabsanaa ee ka dhacay magaalada Los Angeles sharcigaasi waxa si joogto ah loo adeegsan jiray sanadihii 1950meeyadii iyo 60meeyadii markaasoo ay Mareykanka ka socdeen kacdoonadii dhinaca xuquuqda shacabka waxa waqtigaasi adeegsaday 3 madaxweyne oo soo maray Mareykanka madaxweyne Dwight Eisenhower ayaa wajahay diidmo markii uu sharcigaas adeegsaday sanadkii 1957 isagoo damacsanaa inuu militariga u diro mudaharaadyo ka socday iskuul ku yaala gobolka Arkansas halkaasoo caruur isugu jira cadaan iyo madow si wada jir ah wax loogu bari jiray tan iyo dhamaadkii 1960meeyadii in sharcigaasi la isticmaalo waxay ahayd dhif aqalka wakiilada ayaa dib u eegis ku sameeyay sanadkii 2006 kadib markii uu Mareykanku dhuftay duufaantii Katrina ujeedadu waxay ahayd in militariga laga helo caawimaad laakiin dib u eegistii waa laga noqday kadib markii maamul goboleedyada ay ka soo horjeesteen